Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena gorfaynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Laligaha uu diiday codsi lama filaan ah oo Real Madrid ay ku gudbisay Newcastle oo diiday dalabkii rasmiga ahaa ee Liverpool kaga yimid Manchester United oo Newcastle ku garaacday saxiixa Messi Sesko sidoo kale Manchester United oo xiisad dhab u muujisay goolhayaha Paris Saint-Germain muxuu Mikel Arteta ka yiri diyaar garowgiisa kooxda xilli ciyaareedka cusub Arsenal oo kala dooratay Eberger Eze iyo Rodrigo walaalaha Williams oo loo haysto dacwad musuq iyo tooganimo ah Messi oo go'aan ka soo saaray mustaqbalkiisa Inter Miami aynu ku bilownay sida ay baahisay idaacadda ka Danacero kulankii u dhaxeeyay Madrid iyo Osasuna ee qayb ka ahaa wareegga koowaad ee xilli ciyaareedka cusub Laligaha ayaa la qaban doonaa sidii loogu talagalay 19 Agoosto iyadoo aan wax dib u dhiga lagu sameyn doonin. Tani waxay timid kadib markii garsooraha tartamada ee xiriirka kubadda cagta Spain uu diiday codsigii Real Madrid ay ku doonaysay in dib loogu dhigo kulankaasi. Codsigaasi wuxuu ku salaysnaa inaysan helin waqti ku filan oo ay ku diyaar garowdo maadaama ay dhawaan qayb ka ahayd tartanka Club World Cup-ka. Inkastoo Madrid iyo Osasuna iyo weliba xiriirka kubadda cagta Spain ay isku raaceen in la hakiyo kulanka, haddana maamulka Laligaha oo madax u yahay Xavier Tebas ayaa si cad u diiday isbeddelka jadwalka. Go'aankan ayaa markii dambe garsooraha uu ku raacay sidoo kalena uu ansixiyay. Taasi micnaheedu waa in Real Madrid ay si rasmi ah u bilaabi doonto ololaheeda Laligaha xilli hore iyadoo aanan heli doonin fasax dheeraad ah oo ku saabsan nasashadeeda iyo weliba tababarkeeda isku diyaarinta. Go'aankan ayaa dhaliyay hadalhayn weyn maadaama uu saameyn karo diyaar garowda kooxda xilli ciyaareedka soo socda. Kooxda Newcastle United ayaa si cad u diiday dalab rasmi oo gaaraya 100 milyan oo ay Liverpool ka gudbisay weeraryahanka Sweden Alexander Isak sida uu shaaciyay The Athletic. Newcastle ayaan doonayn inay iibiyaan xidigan waxayna si adag u sheegeen in qiimihiisu uu yahay 150 milyan taasi oo sare u qaadaysa heerka wada hadalka labada kooxood. Si kastaba Liverpool ayaa la filayaa inay ku soo laabato miiska wada hadalka iyagoo diyaarinaya darab kor u dhaafaya 120 milyan si ay ugu qanciyaan Newcastle. Dhanka kale Alexander Isak ayaa si cad ugu sheegay kooxdiisa inuu doonayo ku biirista kooxda Liverpool xagagan taasi oo cadaadiska ku sii kordhinaysa kooxda Newcastle. Manchester United ayaa la sheegayaa inay haatanba hoggaanka u qabatay saxiixa weeraryahanka Leipzig Messi Sesko sida uu sheegay wariyaha lagu kalsoon yahay Ben Jacobs. Wararka ayaa sheegaya in wada hadallada wanaagsan ay toddobaadkan dhex mareen labada dhinac taasi oo keentay in Sesko uu aqbalo suurtagalnimada ugu biiraya Manchester United xitaa haddii aysan ciyaaraynin tartamada Yurub xilli ciyaareedkan. Si kastaba Hashiiska ma aha mid sahlan. Leipzig ayaa ku adkaysanaysa qiimaha xidigan inuu gaarayo 75 milyan oo lagu daray gunnooyin dheeraada. Kooxda Newcastle United ayaa weli tartanka ku jirta waxayna wada hadal la wadaageen wakiilka Sesko balse wararka ka imaanaya gudaha kooxda ayaa muujinaya walaac ah in ciidugu doortay u wareegitaanka United ayaa si degdeg ah u doonaysa inay u hesho weeraryahan cusub si ay ugu xoojiso safkeeda ka hor bilaabashada xilli ciyaareedka cusub. Isla wararka Manchester ayaynu ku jirnaahay Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsanayso saxiixa goolhayaha Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagagan. Man United ayaa raadinaysa goolhaya cusub oo bedel u noqda Andre Onana kaasi oo qaladaad badan sameeyay tan iyo markii uu kaga soo biiray Inter Milan sanadii 2023. Inkastoo Onana uu ahaa goolhayaha koowaad tan iyo markaasi, haddana cadaadis ayaa saaran kaasi oo si weyn u keeni karta beddelkiisa iyadoo jamaahiirta iyo khubarada sida joogta uga hadla qaladaadkiisa waaweyn ay haatan u galo. Sida laga soo xigtay wargeyska Daily Mail, heshiis kasta oo ku saabsan Donnarumma ma noqon doono mid sahlan iyadoo la filayo inuu dalbado mushaaraad sare iyo lacag badan oo lagu iibinayo. Donnarumma oo 26 sano jir ah ayaa haatan galay sanadkiisii ugu dambeeyay qandaraaskiisa Paris Saint-Germain waxaana la filayaa inuu kooxda ka tago kadib 4 xilli ciyaareed oo ku qaatay Liga 1-ka. United ayaa doonaysa
inay si buuxda u xaliso dhibaatada goolhayaha ka hor bilaabashada xilli ciyaareedka cusub. Inkastoo Arsenal ay guuldaro 1-0 kala kulantay Tottenham kulan saaxiibtinimo oo ka dhacay Hong Kong, haddana tababaraha Gunners Mikel Arteta ayaa muujiyay kalsooni iyo diiranaan kadib bandhiggii kooxdiisa. Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay bandhigeenna. Wax kasta oo aan arkay 10kii maalmood ee ugu dambeeyay waxay siinayaan rajo weyn. Waxaan xaqiiqsaday inaan ka horeyno maalmihii aan filaynay si aan u gaaro waxa ugu wanaagsan. Arteta ayaa intaasi ku daray inkastoo natiijada kulankaani aysan ahayn mid fiican, haddana waxaa laga faa'iidayaa in la ogaado inta yar ee lala socon karo guul iyo weliba guuldaradaba. Xitaa haddii natiijada caawa aysan ahayn tan ugu fiican, haddana waa cashar muhiima sida aan u fahanno waxa yar ee naga dhiman, ayuu markaasi yiri. Arsenal ayaa hadda soo gabagabaysay safarkeedii xagaaga ee Aasiya, waxayna dib ugu laabanaysaa London, halkaasi oo ay kula ciyaari doonto 2 kulan oo saaxiibtinimo oo muhiima. 6 Agoosto Arsenal iyo Villarreal, 9 Agoosto Arsenal iyo Athletic Bilbao. Labadaasi kulan ayaa lagu ciyaari doonaa Emirates Stadium, waxaana la arkayaa inay yihiin fursaddii ugu dambeysay ee tababarka ka hor intaana si rasmi ah loo bilaabin xilli ciyaareedka cusub, taasi oo Arsenal u furnaan doonta kulan weyn oo ay la ciyaari doonaan Manchester United. Isla wararka Arsenal ayaynu ku jirnaa. Kooxda Arsenal ayaa weli ku raadin joogta xidig garabka bidix ka ciyaara inta lagu guda jiro suuqa xagaaga, waana xidiga Crystal Palace Berger Eze oo noqday bartilmaameedka ugu dhow sida uu qoray wargeyska AS ee dalka Spain. Tababaraha kooxda Mikel Arteta ayaa doonayo inuu dhammaystiro xoojinta safkiisa kadib markii ay kooxdu horey ula keensatay Victor Gyokeres, Martin Zubimendi, Kepa iyo ciyaartoy kale oo muhiima. Wararka ayaa sheegaya in Eze diyaar u yahay inuu ku laabto Arsenal maadaama uu horey uga tirsanaa akademiyadda kooxda, balse Arsenal ma doonayso inay bixiso qiimaha lagu burburin karo ciyaaryahankani ee 78 milyan. Kooxda ayaa doonaysa inay miis ka saarto 40 milyan oo lagu bixinayo 2 qaybood, inkastoo aysan taasi ahayn mid macquula. Dhanka kale, Rodrigo oo ka tirsan Real Madrid ayaan ku jirin qorshaha Arsenal, inkastoo lala xiriirinayay kooxo badan oo Ingiriiska sida Man City, Liverpool iyo Tottenham. Antonio Gordon oo Newcastle ka tirsan ayaa isna liiska ku jira, balse qiimaha sare iyo qandaraaska fog ayaa ka dhigaya heshiiskani mid lama taabtaan ah. Maxkamad ku taalla gobolka Navarra ee dalka Spain ayaa si rasmi ah dacwad ugu ogtay 2 ciyaaryahan oo ka tirsan Athletic Bilbao, kuwaasi oo kala ah Naka Williams iyo Nico Williams, kadib markii lagu eedeeyay khiyaano iyo ku tagrifal sharci darro ah oo la xiriira gaari Mercedes AMG E63 kaasi oo qiimihiisa yahay 130,000. Warbixin dacwadda ayaa sheegaysa in walaalaha Williams ay ku lug lahaayeen heshiis been abuur oo iibka ah oo ay galeen iyadoo ka shanaya eedadooda dhaqaale ahaan liidata iyo qof saddexaad oo dhexdhexaad ah. Waxaa la sheegay in gaariga heshiiska lagu galay aan la keenin, isla markaana wax nidaam sharci ah oo rasmi ah aan la dhammaystirin, taasi oo keentay khasaare dhaqaale oo weyn oo soo gaaray shirkaddii iska lahayd gaariga. Maxkamadda ayaa bilowday baaritaan rasmi ah, waxayna dacwad 2 ciyaaryahan ugu wargelisay eedeymaha, iyagoo sidoo kale qaaday tallaabooyin taxadar leh si aanay caddeymaha u lumin ama gaariga uusan u baabi'in inta baaritaanka uu socdo. Dhanka kale, walaalaha Williams ayaa soo saaray bayaan rasmi ah oo ay ku xaqiijinayaan inay ka fog yihiin dacwadda loo haysto, waxayna sheegeen in eedeymahaasi ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn, isla markaana lagu soo bandhigay dacwad ay ka yihiin wax sal iyo raada si ula kacna markaasi loogu sameeyay si ujeedadu ay tahay oo loo dhaawaco sumcaddooda shakhsiyadeed iyo xirfadooda si loo caddeeyo inay bixiyeen lacag aysan u qalmin. Walaalaha Williams waxay si adag u beeniyeen inay ku xadgudbeen sharciyada Spain, waxayna muujinayaan kalsoonida buuxda oo ay ku qabaan nidaamka garsoorka Spain, waxayna sidoo kale ballan qaadeen inay qaadanayaan tallaabooyinka sharciga ah ee ka dhanka cid kasta oo faafisay eedeymaha been abuurka ama si ula kac u dhaawacday sumcaddooda.
Arrintan ayaa si weyn hadalhayn ugu dhalisay gudaha Spain gaar ahaan iyadoo Nick Williams uu hadda yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu saameynta badan xulka qaranka Spain iyo horyaalka Laligaha Spain. Sida uu sheegay wariyaha Javier Combos oo ka hadlay barnaamijka Tutto Coste, Lionel Andres Messi ayaa la filayaa inuu kordhiyo Hashiiska uu kula jiro kooxda Inter Miami ilaa iyo sanada 2028. Haddii la xaqiijiyo kordhinta, waxay Messi uu ku sii hayn doonaa Major League ama MLS-ka 3 sano oo dheeraada marka laga reebo Hashiiska hadda oo dhammaanaya dhammaadka xilli ciyaareedka 2025. Messi horey ayuu u sheegay Inter Miami inay noqon doonto kooxdiisii ugu dambeysay ee xirfadiisa kubadda cagta, taasi oo kordhinta Hashiiskani ka dhigaysa mid waafaqsan qorshihiisa. Kooxda Inter Miami waxay qorsheynaysaa inay furto garoon cusub oo casri ah oo qiimihiisu uu yahay 1 bilyan oo la yiraahdo Miami Freedom Party sanada 2026, waxaana la rumaysan yahay in joogitaanka Lionel Messi uu kaalin weyn ka qaadan doono xafladda furitaanka iyo ololaha kooxda xilligaasi. Jorge Mas oo ah wakiilka kooxda ayaa muujinaya rajo weyn oo ku aadan in Messi uu sii joogo kooxda, isagoo xusay rabitaankooda in Messi uu hogaamiye ka noqdo kooxda marka ay galayaan wejiga cusub ee taariikhda Inter Miami. Inkastoo warbixinta weli si rasmi aan loo shaacinin, haddana ilo ku dhow ayaa sheegaya in joogitaanka Messi MLS-ka uu yahay mid suurtagal ah ilaa iyo dhammaadka 10 sano ee soo socota.